kusoo dhawaada videogeena cusub. maanta waxaan ka hadlaynaa supply and demand. Supply and demand-ka supply and demand-ka wax kale ma ahan aanan ahayn order block sida aan idin sheegay. Order block-gana anaga waxaan adiis aan markaan barnaamij marmani waxaan u aqaanay kaliya midka entry ka qaadanaa, laakiin meel kasta oo reaction ka dhaco waxaa ku jiro supply ama demand laga celsho. marka labada anaga noogu muhiimsan of course waxa waay kuwa aan isleena suuqa markuu meeshan tago oo order block-gan tago aan entry ka raadsan karno, iyo mid jiro waxaa jiro oo chog markuu dhacay la fiirsho oo asagana waa idin macnayn doonaa. Okay, marka kuwan oo anaga aan caadiyan aad xoog u saarno waxa weeyaan kuwa aan leenahay for example lacagtan waa bullish sama. So macnaheedu waxa weeyaan intana waxaa ku jiro demand, inta waxaa ku jiro demand kale. marka demand-yadan waa kuwa aan leenahay for example markuu inta imaado suuqa waxaan ka raadsanaynaa entry maybe lower time frame ama isla intaba haddaa rabtid kadibna oo aan qaadanayna buy-ganeeto and so on. markuu selka yahayna waa supply. So kan waxaan yidhi waxa weeyaan demand, okay? kanna waxa weeyaan supply. And then ganeeto, and then yeah, that's it. So kanna waa demand hadaa maqashid waa markuu suuqa buy aadayo, supply-na markaa maqashid waa suuqa markuu sell soo aadayo, okay? So waa sellerska waa isbaarooyin isu dhiganayo maaragtay oo la dhahay inta ma soo mari kartid haddaa soo martina wax bixisid. So reaction yar haddoo la suuqa falaag haddaa aragtid waa demand ama supply fail garoobay hadda intuusa markaa suuqa galo, okay? kuwaan leewaan kuwa dadka xooga saaraan, laakiin hadda guud ahaan aan dhexgalaynaa kadibna kuwa ugu muhiimsanaa intuusaya insha Allah tacaala. So hadda fiiri suuqaanito, just to give you an example, suuqaanito intuu jooga sana wuu soo dhacay meeshan ayuu ka noqday. muxuu meeshan uga noqday? meeshan uma noqono inuu falaag sameeyo, suuqa falaag ma iska sameeyo, wuxuu u noqday because demand-kaneeto soo ma jeedid ayaa reaction bixinaya. So demand-ka marka micnihiisu hadafkiisa maxaa isbaarada suuqa inuu buy u diro, laakiin mid awood leh ma ahan. badanaa waxaa awood leh kuwa extremeyada yaalo ayaa waxa la celiyo oo muhiimka ah, laakiin midkan kuwan yariiska meelaha ku jiro wax muhiim ay leeyihiin male. waxay muhiim yeelanahay hadduu meesha chog yahay haddii kale, taasna waa ka hadli doonaa insha Allah. marka maxaa inta ka dhacay? marka suuqa reaction uu bixiyay wuu baxay, haddana intuu soo yimid inta markuu yimid maxaa dhacay? iyadana maxaa dhahay demand-ganeeta yaalo, asagana maxaa la sameeyay? reaction laga bixiyay soo ma jeed, and then waa la jabiyay. marka kan camal waa flip waxaas insha Allah iyadana waa ka wada hadli doonaa. suuqu wuu soo noqday inta haddana muxuu ka sameeyay? haddaan gadaal u baxno 15 minute maanta ku jiraa, haddaan gadaal u baxno for example to give you an example kan iga xeer guud ahaantiis. So haddaan gadaal u baxno kanaan ka wadnaa soma, we will find for sure waa kana demand-gan muxuu sameeyay? reaction ka sayuu bixiyay soo ma jeedin, laakiin maxaa dhacay? waa la soo jibiyay isagana. okay, intaan la soo jibin haddana maxaa dhacay? suuqa haddana wuxuu isku day inuu aado, wuxuu isku day inuu buy aado soo ma jeedin. inta haddana reaction ka bixi waayo because inta wuxuu ku jiraa demand ku jiro, bas demand yaan istaqfurlah supply. okay, inta wuxuu ku jiraa supply-gaas ayaa haddana uu reaction ka bixi, haddana supply-ga maadaama uusan ahayn mid xoogan waa la jabiyay, laakiin demand-yaan mujeedido demand-ga muxuu ku sheegay xogaha yar inuu sanadkiis waa la jabiyo awood saas ma lahan, laakiin at least reaction-kiis waa ka weyn yahay. macnaheeda waxa weeyaan waa higher time frame demand, oo maybe haddii aad tagtid 15 minutes ku jira 4 hour kama day-ga ama weekly ku yahayba kan weekly ma taas uma weyna, laakiin 4 hour ka camal uu yahay uu soo jibina ama day-ga. okay, so marka reaction-ka kaneeta yar reaction-kiis ilaa inta le waayo waa lower time frame,
kan laakiin waa higher time frame so reactionkiisa wuu ka wen yahay marka aan sii wadno kanayto so kan maxaa dhacay marka waa la jebiyey kan intee laga soo celiyey lacagtis kama soo noqnoqoto unless uu jiro demand ama supply soo celiyo demandigan ayaa soo supplygan ayaa soo push gareeyay lacagta way soo noqotay maxaa la dhahay markay soo noqotay intii yaa waxaan ka push gareeyay waxaa ka push gareeyay haddana maxaa la dhahay demandigan right demandigan ayaa isagana ka wada push gareeyay okay kan marka inta timid maxay ka soo noqotay isla demandigan waayo tan waa liquidity nooc min liquidity oo inducement la dhaho insha Allah iyagana waa ka hadli doonaa ayaa haddana soo celiyay boom markay soo noqoto haddana maxaa dhacay kan reaction kaanu bixiyay reaction kaas intuu ka yimid meel kale kama imaanin aanan ahayn demandigan soo jeeda demandigaasayto iyo lacagta ka bush garaysa meeshaasayto okay kadib haddana maxaa imaaday kadib lacagta maxay sameysay in la inta timid inta dee timaadan iyadana maxaa jiro for sure haddaan lower time frame jirno waxaa jira meeshaan ka bush garaynayo kanayto keligiis uma maleyna inuu yahay soo ma jeedid kanuu bush gareeyay so kanna for sure haddaan lower time frame tagno waxba meeshaan ku dhex jiro oo bush gareeyay okay so dadana lacagta way soo dhacday kan inta yimid inta waaye demandigan oo aan la jibinin weli wax bush gareeyay haddana wax burjiyay ilaa laga jibshay isagana soo ma jeedid so waa la jibiyay kan intuu reaction ka bixiyay demandigan uu ka baxshay demandigan ayuu ka baxshay soo ma jeedid okay haddana lacagta way soo dhacday kan intuu reaction ka baxshay wuxuu ka baxshay demandigan oo ah sell to buy macnaheedu waxa waa laba kandalo isdhaafsan oo weekya leh haddaa fiirisid lower time frame-ka maybe kan ka koreya waay sorry yes lower time frame-ka waa demand caadi ama meel correction yar ku jiro so and so on soo ma jeedin kan haddana wuu soo dhacay meeshan for sure lower time wax ku jira ayaa bush gareeyay isaga naftigiis let's take this one okay waa la celshay haddana wuu soo dhacay kanna for sure meeshaas gadaal waxbaa ka jiro oo celinaa kii haddaaya aan idin tusayay ayaa isagana adeertaan soo celiyay kan ayaa soo bush gareynay isla kalna waay anyway isla kan yes kaasoo ma uusan jebin weli and so on so kan haddana wuu jebiyey haddana lacagta way soo noqotay markay soo noqotay intana hadda waa ujeedaan reaction yariis waay oo lower time frame kanaa ka horeeya oo bushkan siiyey and so on so meel walba oo suuqa correction ka sameeyo demand ama supply ayaa ku jiro okay demand ama supply ayaa ku jiro so waa muhiim inaad taas fahamtaa markaan taas kasoo gudubno marka kuwaa waaye marka kuwa anaga aan muhiimka saarayno mar walba kuwa muhiimka saarayno waa inuu ku fikirnaa suuqa booska ugu dambeeya intuu ka dhacay so waxaan dhanaan tirtiraynaa si aan ugu fududaato okay hadafkaygu waxaa waaye mar walba aan raadinahay booska ugu dambeeya intuu ka dhacay kabacdi markii reactionka la sameynaa intaa loo noqonaya la socotaa markaas maxaa kuu fududaanaysa waxaa kuu fududaanaysa inaad fahantid supply-yada ama demandiyada wax kala celinayo oo adiga hadhow aad entry ka raadsan kartid okay because aniga at least habka u shaqeeyo waxa weeyaan 4 hour time frame ku yahay base 15 minute kana waa supply and demandiyada entry-ga ka raadsado kuwa gooni ah jirto oo si gooni u raadsado mid meelaha ku jira in raadsanaya waxa raadsanaya mar walba mid oo structure-kii ahaa impulsive correction kaasayto oo booska ku dhex jiro kuwaas li ani muhiim ii ah kan meeshuu ku dhamaanay inaan ogahay kanna meeshuu ku dhamaanay inaan ogahay and so on okay kuwa kaloo gudaha ku jiro waa ku mashquulinayaan laakiin you have to know why insha Allah markii aan liquidity-da gaarno waxyaalo badan aad fahmaysaan oo imbalance-kii aan ka hadlo imbalance inta lagama qaad laakiin
maxaa la dhahay supply demandada ku kala qaybinaysa ku muhiimka okay lacagtan waxaa soo dhacay boss right waxaa soo dhacay boss what is that boss right and then what happened yes boss kan baa dhacay lacagta way noqotay markuu boss ka dhaco maxaa waay 50% oo premium iyo discount lama aan sameyn kii cusbaa waxaan sameeyay okay kan oo premium and discount ayaa kala qaybinayo supply iyo damaanada qashinka iyo kuwa muhiimka waayo markan kaas u dhigto maxaa soo baxay meeshaanita gudahooda waxaa ku jira first of all kan waxaa ku jira kan iyo waxaa ku jira kan so waa saddex xabo oo supply okay so kan right supply kaseto and then waxaa ku jira kaneto okay adana waxaa ku jira kaneto reaction laga sameeyo oo laga qaadan karo xitaa trade kameeyo haduu lower time frame inta ku siiyay and adana kaneto waa la jabiyay adana kaneto oo kan laga soo qaato way kan waa indisma so kan marka muxuu noo sheegayaa wuxuu leeyahay kuwan markii la saddexdan markii la imaado ka raadso lower time frame maybe chalk and 5 minutes and 1 minute waxay ahaato hadda 15 minute joogtid hadda 4 hour joogtid 15 minute chalk ka raadso kadibna haddii uu kuu saamaxo raac okay like waa inuu soo gala 50% oo dhin kan kore waa premium ka marka soo salgaraysanayso waa lacagta markii qaaliyoodo ama discount markii lacagta raqiis noqdo inaad bay garaysid okay kaas ayaa kala saaraya kuwan yar oo macnaha leen iyo kuwa muhiimka teeda kale lacagta markay chalk samayso give me a place for chalk okay this is a good place isu korto meelaha ugu dambeysay gay because meeshaas waxaan ka dhaqaa inaan jirjiri karin so this is a place uu ka dhacay maxaa la dhahay chalk which chalk qorxan raadsanaya waxoogaa easier waxoogaha weli waxaa ugu jirto maxaa la dhahay mark structure-kii cellka laakiin of course alxamdulillah structure waxaa ku fiican tahay cell by you just push it okay kaneto maybe done 15 minutes what I did let's cut and then 15 minutes maybe 5 minutes waxaan rabaa inaan idin kala qaybiyo labada nooc supply iyo demand waxaa jiro oo markaad joogga raadinaysid aad fiirinaysid macnaheeda maxaa waaye for example lacagtaanita waxaan ka sugeynaa inay chalk samayso right so waxay samaysaa higher high higher low higher high higher low higher high right so inta wayaan joogay waa this level so marka waxaan leeyahay suuqa markuu inta yimaado ayaan aniga maxaa la dhahaa sel gareynaya maybe lower time frame dadka hadana meesha wax ka dhaxayno let's go 1 minute to make it even easier okay now higher low higher low higher so this is 1 minute jogging so waxaan leeyahay suuq hadduu inta yimaado waa inaan ka bush gareyn karo right markii aan saas sameeyo waxaa laga rabaa inaan raadsho meelihii demand in this case maadaama sel soo yahay demandada weeye markuu buy yahana waa supply so demand meelahan ku jiro oo hadhow lacagta markay soo noqoto reaction aan ka qaadan karo u noqon karo waayo suuqa marka maxaynu nidhi jogga waa laba nooc soo ma midna waxa weeyaan mid extreme ka tagaayo oo double top ama u eg midna waxa weeyaan mid oo intuu meeshan reaction ka dhaco suuqa just the seasonal baa lahaa the seasonal uu tagayo waa normal flipka uu ka soo baxayo okay so marka ani inaan ogahay hadduu suuqa meeshan ka soo noqonayo sababta ugu soo noqonayo sababta ugu soo noqonayo waa inuu meesha ku jira dhammaan fail garoobay oo lagu noqonayo okay so inta marka maxaa ii muuqdo
inta waxa inuu muuqdo inuu yahay order block ana ku jiro su'aal ka saarnay maraba inayna mashquuliso okay waxaan ka helay inside bark soo ma jeedido kan weeyaan supply yani waxa demand yani okay so demand gan muxuu sameeyay marka reaction inta ka bixiyay uu sii dhacay ani marka maxaan sameeynaa waxaan soo qabanaa again premium discount kayga intuu ku aadan yahay waa kana waa sell to buy so let's take it this one right suuq intuu ku soo noqday meeshaas intuu ku soo noqday suuqa wuu awood xataa inuu extreme kado of course because as usual adiga waxaa haystaa labadan option hadii kan kan lagu tuuro oo 1% laga qaramsada ama 50% waxa ku 0.50 adiga kugu xiran tahay inaadana inta karaatid labadaas inta meeshaas ka heli kartaa kan uu buush garan kara kan kale so waa ujeedaan suuq intuu ka baxay kan ayuu ka baxay so das mid kalabaad oo ah markuu jogga ii sameysma inaan ogahay meelaha demandiyada ama supply-yada soo fail garoobay oo lagu noqon karo waayo mar alaal markuu supply ama demand fail garoobo chance waxaa jira flip baa la dhahaa entry inuu intuu hoos u dhaqo ku soo noqdo oo uu qaato kaas insha Allah marka entryada ka hadlayna ayaan asagana ka hadli doonaa just hadartan like one concept kanito like si gooni markaas uga hadli doonaa insha Allah mar rabina in wareeriyo so meel walba oo supply iyo demand ku jiro reaction baa ka dhacaya you know already that kan intuu ka noqday waa kana laakiin kan muhiim ma ah yes muhiim inuu qan inaan ogahay while lacagtan meeshan ay ugu noqoto waayo lacagtan meeshan kama noqonayso unless 1 minute oo ku jirnaa so meelaha dhaxdhaxe kama noqonayso meeshan kama noqonayso inuu supply ama demand yaalo oo push gareynayo ma shaqata so kan uu push gareey hadana maxaa supply ganito oo week ayaa soo push gareey hadana uu push gareey wuu xoogan yahay macnaheeda markii loo barbar dhigo kuwa guud ahaan uma xoogana laakiin markii loo barbar dhigo kuwa yariiska oo soo push gareynaya mar walba wuu ka xoogan yahay soo jeed ilaa la tago mid 50% premium ka ah kaaseed ayaa jibiyay soo jeed so markii la jibiyay hadana maxaa dhacay waa lagu soo noqday order block anita qaatay oo meeshan ku dhex jiro hadana waa la siiyay push gareey intaas marka intaan ka keenaya video insha Allah qaybtan waa muhiim so I will recommend you ina insha Allah sameysaan backtesting ku sameysaan just ina fahantaan concept supply and demandiga hal video ma ku soo wada dhameeyay laakiin dhima lahano waayo marka wax falanqeynayo oo supply-gana fail garow waxaas waa iga maqli doontaa so supply and demand will be wax iga maqli doontaa more than order block okay insha Allah marka intaan ku sii keenaya backtest gareeya wax kasta waa inuu next video wabillahi tawfiq